بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ka joogaan aad iyo aad ayaan idin salaamayaa. salaanka bacdi كل يوم الجمعة طبعا اسبوعي halkaas mar aan fursad u leeyahay inaan wajigayga muuqaalkayga iyo codkayga aad maqashaan insha Allah. waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta mowduuc aad iyo aad loo wada xasuusto runtii mowduucaasina oo dhibaato badan noo soo geystay. mowduucaasi wax kale ma ah walaalayaal, dagaalkii sokeeye ee na qabsaday 1991 wixii ka dambeeyay ilaa yoomina hada. waad garan kartaan dagaal wiilow ku dhintaa wiil kuma dhashto, dagaal wiil oo ku dhintaa wiil kuma dhashto. idan marka waxaan dareemayaa marka oo aan aad iyo aad u dareemayaa walaalayaal, Soomaaliya in cadow badan ay yeelatay. hadday ahaan lahayd cadowga dibadda, cadowga gudaha, cadowyo noocyo badan leh ayay yeelatay Soomaaliya. waxaa la rabaa marka cadowgaas yaa ka difaaci kara? isweydiin waa su'aal. cadowgaas waxaa ka difaaci kara dalka dadkiisa ayaa ka difaaci kara walaalayaal. run ahaantii dalkan annagaa leh, Soomaali haddaan nahay, difaaciisa annagaana laga rabaa. cid kale noo difaacaysa ma laha walaalayaal. maxaan ugu difaaci karnaa? seen ugu difaaci karnaa? waa su-aasha isweydiinta mudan. waxaan ugu difaaci karnaa walaalayaal innagoo wadaniyadda dhabta aan qaadanaa. qofaan wadani ahayn walaal wadankiisa ma difaaci karo. waa inaan gacmaha isqabsanaa ayaan iskaga difaaci karnaa cadowga. Soomaaliyaan nahay walaalayaal. saan wada ogsoonahay burburkii kadib laga soo bilaabo 2000 ilaa al'aankan waxaan yeelanay dad siyaasiyiin ah للأسف dadkeena siyaasiyiinta ahaa wadankeena kuma uusan aflixin, kuma uusan guuleysanin. shacabka Soomaaliyeed kama aysan aflixin. dadka siyaasiyiinta ah maanta waxaa looga fadhiyaa wadankooda say u badbaadsan lahaayeen. duulaan baana lagu yahay, duulaan. haddaan idin sheegayaa Soomaaliyeed. Kenya duulaan nagu ah, Ethiopia duulaan nagu ah, adduunweynaha intiisa kale wax yar waay wax annaga ma aragta heshiis nala walaalayaal. wax yar waay walaalayaal. dad yar ayaa nala raba horumar inaan gaarno, wadankeena uu ku tilaabsado horumar walaalayaal. sababtu maxay tahay oo cadowna lagu yeeshtay oo cadow aan ku noqonin maxay tahay walaalayaal? waxaa la ogaaday dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad mufakkiriin ah, dad wax tar leh inay yihiin la ogaado walaalayaal. that's why lama rabo marka dad wada waaye arag ah, dad wada aqli leh, dad yacni wax tar leh adduunka maanta oo haddana dadkaasi 100% muslimiin ah walaalayaal.
10 sano haddii farahna laga qaado arrimaha shisheeyaha u gudaha oo noogu dhex jiro naga baxo 10 sano waxaan hubaal ah inaan gaari doono horumar aan caadi ahayn walaalayaal. waxaana loo diidan yahay waa horumarkaas. marka maxaana la gudboon walaalayaal? waxaana la gudboon inaan fikirno siyaasiyiinteena maanta oo cadowga iska dhiganaya oo iska dhigaya yacni dad oo kala fog iska dhigaya ilma adeeraan ah walaalayaal. Soomaaliya wadanahay ma kala go'no. marka waxaa la rabaa in wadankan aan u shafeecno walaalayaal iyo dadkiisa. af iyo adinba ina ugu difaacna la rabaa. waa garan kartiin mar dhaweed safaaradda Soomaaliya in loo yeeray Canada, loo yeeray ninka la yiraahdo safiirkeena khayr Allah siiye tarsan loo yeeray. kan Kenyana la bixiyay la wacay la dhahay bax la soo dasha dadkaaga, dawladdaada la soo dasha la dhahay. annagana safiirkeena la tashanayna. marka meesha waxaa ka cad in Kenya tadakhulaad ziyaada ay nagu hayso walaalayaal. saan ugu hortagi lahayn falkeeda annagana laga rabaa. dabcan Kenya iyada macnaha toos nooma soo cabaarayso, laakiin waxay noo soo adeegsanaysaa walaalkeen ayay noo soo adeegsanaysaa. walaalaheenaas marka la soo adeegsanayo waxaan leeyahay ka digtoonaada cawaaqib xumada ka dhalan karta. ka digtoonaada cawaaqib xumada ka dhalan doonta. wax allaala wixii wadankaasi ku dhaco eedeeda idinkaa xambaaraya, idinkoo ah dadka la soo adeegsaday shisheeye kalkaaliya. shisheeye kalkaal, shisheeye kalkaalow, dantaada qaaskaad ka shaqaysanaysaa, laakiin danta guud kama aadan fakirin. waxaan kugula talin lahaa inaad danta guud fiirisid walaal. insha allahu tacaala videoga xiga ayaan rabaa inaan ka hadlo sida aan ugu badbaadi lahayn ninka u shaqaynaya shisheeyaha. السلام عليكم.